السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ahay Nasre Aadan Muuse Rooble. waxaan la hadlayaa xukuumadda Jabuuti maxaan kula dawladda Jabuuti ma la hadlayaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. walaal waxaan ka codsanayaa in kayga sharmarka Siciid Daraar waan soo daynayaa baa leega yiri xaafadii baan ka wada tagnay oo ka soconay markaaba in kayga waxa dhacay waxa dhacay aqalkii adduunyadina la isoo weerdo daqiiqa laga dhigo oo lixde baawro booliis la keen wada waxay mashruucada dawladda u taala xukuumad baan leeyahay dawlad baa jirta waxa bada sharciga dawladda u yaala ee dawladda ka dhigan ku soo deynay kaale la yiri haddana aqalka leegu soo weerartay war xukuumadda dawladda taa u taal war halkay jirtaade war inanka xaaladu ku sugayay ma arkay war 25 kaygu xiran yahay war ciyaal ku shaqayso qadinadaysan cunto ma cunuyo war xaaladu ku sugay walaalahay ma garanay war wad ma lahayn war awliyaad ma lahayn wareer ma lahayn ina kaygu waxaan doonay xaaladu ku sugay ma jirto halkan baa lagu xiro halkan kala la geey halkan galiga lagu haya ina kaygu walaalahay waxaan doonayaa si degdeg ah in la igu soo daayo sharmarka Siciid Daraar oo arkayna kaygan doonaya war dad wad la leedi war reeraan leedi war aqalkiina ina soo loo galay madabasha aqalkayga dawlad 6 baa loo gala daqiiqa laga dhoo soo loo burburiyay ya war de sharciyada dawladda u taal halkan u taal wato maxay waxaan doonayaa sharmarka Siciid tuug ma hayna kay dad muu bicin dad muu qalin dad muu qaban suuqa laga qaadaa leeyahay haddana waa dawladda Jabuuti iska daayeen qoshiyeega waa dadkayga haddana waxa dhacday dadina kini walilisay deena kaale inaan la yiraahdo oo soo noqday oo haddana dib la yiraahdo de maxaan ku dhahaayay dib la yiraahdo kaale oo ina kini lilisay deena qalkii ubadka iyo cunto wixii aan ka tagay la isoo weydaarto sida loo soo xiro kadeenan oo aqalkii wala burburiyo wala jajabiyo daqiiqa laga dhigay warda mashruucada dawladda taa u taala warta halkay ka timaday war maxaa dhacay maxaa dhaco maxaa jiro maxaa dhacay warda qof la xiro wala arki jiro sharciga dawladda la geeyo maxkamad la geeyo la mariyo ma qof wax yarda bildan dhulka lagu meerisina meesha mag la geeyo ma jiro inagayga dhamiseen waxaan doonayaa niga codsanaya inagayga sharmarka Siciid Daraar inay tusimo niga codsanay ma xukuumadda Jabuuti oo dawladda Jabuuti oo madaxweyne oo tigtara dadka oo dhan waxaan niga codsanay inay tusimo oo niga rabaan waxaan doonayaa walaalahay waxaan doonayaa inagayga inay tusimo war wuxuu madtuugba war madad buu dhac war madad buu dilay war dama dhagar qaba war maxaa dhacay qofka bilaanka sabab galay inagayga xaaladu ku sugan ma jirto gaajiyad balan bari dolbu ku sugan inaad tusimo raba walaalkayo oo tusimo doonaya waxaan niga doonayaa sida maanta inagayga inaad si degdeg ku tusimo war inagayga waliga qanayso oo katinada sanbaaqal galiisa wariyo la keen oo aqalkiina tuslay anna waxa la yiraahdo ku soo deynaa soco de sharciyada dawladda u talmataaba xukuumadda Jabuuti ku dhimaado waxaan la hadlay dadka Jabuuti waan la hadlay walaalihiino war maxaa dhacay war ma waxad meesha ma maxaa dhacay ma waxad masan inakayga waxaan doonay meel ku sugay ma jirto gaxaji rafaad iyo malabal ku sugay inakayga ila la tusaa doonay war ilmaha inuu bildan rusma lagu hayo golba meel la geeyo meel la geeyo gol meel lagu xiro afar meelood la geeyo miniga meel la qurux badan ilmaha ma loo galaan lahayn war ilmaha ma lahayn war madmuuna lahayn war ma wax xeer sharciyada taa u taala walaalaheenu maxaa dhacay inagayga la isoo daayay marka Siciid Daraar sharciyada u taala taa ilmihi halka lagu xiro halka galaa la geeyo rusmaaga 10 cisho lagu waa laga qaad nagaar baa la geeyo duuda la geeyo boorka la geeyo ma wax dhici kartaa waxa waa kuma keenay ba qofka keenay kana salaamo galay ee wax dilay wax geystay war ma tuug baad magaalada waxada maxaa dhacay maxaa dhaco maxaa jira walaaleeno waxa jira dhacay ma wasaaba loo gala waan soo deeyna waan imanayna kiina way imanaya baad iga tiraaheen maana haddana qalkii adduunyada u badka iyo cuuda ka dagay had burbursan xabad u jajibisay haddana dilaysiinba maxaa dhaco 6 baawra booliis ay soo dirtay wuxuu ma qiyaama kala jirtay annagu waxaan doonayaa dawladda Jabuuti inay kayga islaam maanta oo la soo tusayna kayga la keeno doonay walaalaheena walaalaysta oo imaga jishno la tusan doonaya aan wax kale niga rabi ma jirto inagayga wuxuu ku sugay ma jirto xaaladiisu ma fiicno dawo ma haysto in gaaju ku sugan yahay bildan qof la meermeeral ku nool yahay hada niga ni weydiiyay bildan qof weydii laga maqano la arkayo fijaan wali biyahan waraagin halkuu ku nool yahay walaalena niga ni weydiinayaan ma jirto inagayga xaaladu ku sugan yahay inagayga sharmarka Siciid Daraar waxaan niga codsanayaa inaad ii keentiin oo dawladda ka codsanayaan dadka ka codsan xukuumadda ka codsanaya